السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي ميل كاستاد joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha halba maalin kastaad kala socotaan barteena youtube-ka ciyaaraha lates tube ku soo dhawaada muuqaalkan cusub maanta kooga doono kulamada ugu dambeeya la ciyaaray ka tirsan horyaalada kala duwan qaaradaha Yurub haddii aanaynu horyaalka Premier League ka nooca sahale La Liga Isbaanishka Bundesliga Jarmalka Serie A Talyaaniga dabcan soo kale waxaan eegi doonaa cagayo dalka Faransiiska Siba Liwanka dalkaas marba hadii ay joogaan ciyaarnada kala Kalini Pape Lionel Messi Lionel Messi macaadiday inaanu ka faaloona ka hadalno horyaalka dalkaas France oo loo yaqaano Liwanka iyo waliba warar kale sportia oo goosgoosa ayaanu eegi doonaa waxaan soo kale si gaar ah eegi doonaa kulanka darbiga Manchester Derby waana kulan looga fadhiyo in koox kasto ay doonayso inay badiso walba noqoto iyo falaqaysan ayaad ku maqli doontaan wararkeena sportiga maanta iyo waliba xaalada ugu dambeeyay naadiga Chelsea ayaanu eegi doonaa أهلا وسهلا صاحبي ميل كاستاد joogtaan maalin wanaagsan waqti kasto inahaatyo hadaan ku bilaawno horyaalka Premier League ahna kan ugu daawashada badan una cimaasada badan hadii aanaynu kulamo dhowraya jiro shalayto la yaaray siiba waxaanu eegaynaa kooxaha weyn oo shalayto ciyaaray balse hadaan koox qaarkooda kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa waxay 4 dirtay kooxda Southampton waana kulan la dhigi karo kooxda kubadda cagta Aston Villa ay ku rafaadi doontaa asaate si fudud ay uga badisay naadiga Aston Villa 4 gool iyo ever soo kale kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa 2-1 dirtay naadiga Brighton waana kulan aad mooday in inta badan kooxda Newcastle ay maamulayso garoonka waxayna aad mooday in Newcastle markay ka badbaadeen ay ku laabtaan heerka labaad championshipka soo kale kooxda kubadda cagta Crystal Palace waxay 2 direen naadiga Wolverhampton iyo kulgooda joogtiya soo kale naadiga Brentford ayaa 3 dirtay naadiga Norwich waana kulan aad mooday inta badan aad u xiiso leh ciyaaryahan Erikson ayaa mooday inuu qayb ka qaatay kulanka Brentford ay 3 u barbaratay naadiga Norwich soo kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay 4 direen naadiga Burnley waana kulan aad mooday qaybtooda inta badan ay ciyaartu maamulayso naadiga Burnley haasaatay qaybtii labaad ay wax kasta isbedeleen ciyaartu guud ahaan bay la wareegeen naadiga Blues horkaayo tababare Thomas Tuchel inkastoo inay qaalada Chelsea ay runtii midaan u dagan waxaana milkiilaha kooxda Sir Roman Abramovich oo kooxda Chelsea ku qiimeeyay 3 bilyan ilaa 4 bilyan kaasi aad mooday inta badan in milkiilaha kooxda uu marro isbedeli doono waxaana doonaya 2 bilyaneer u dhashay dalka Turkiga iyo waliba dalka Switzerland warku dambeeyay waxa sheegeen inay ku dhowday inay noqoto Turkiga soo kale kooxda kubadda cagta Liverpool waxay soo dhaweysay naadiga West Ham United waana kulan derby runtii waana kulanka shalayto inta badan indhaha lagu wadahay kooxda Liverpool ayaa mooday inay rajo leedahay in ay ku guuleysto horyaalka Premier League waxayna hal eber dirtay naadiga West Ham qaybta hore gool ku dhalay ciyaaryahan Mane ayaa moodaa inay guusha ku raacday naadiga Reds goolkaasi ayaa inta badan loo umaleynay inuu yahay goal offside haasaate inta badan VR waxay tiri waa goal onside si ayna kooxda kubadda cagta Reds hal eber direen naadiga Hamas haasaate fursadooyin badan oo dahabi iska qasaariyeen kooxda kubadda cagta West Ham United oo hogaamiyo tababare David Moyes ciyaaryahan Antonio ayaa fursad dahabi ka qasaaray kooxda waxa soo kaleete fursad kale oo dahabi ka qasaaray kooxda ciyaaryahan Lenzini tani hal dhigi kara inta badan fursadooda maysan ka faa'iideysan kooxda kubadda cagta Hammers ciyaaryahan Vidak waa laacibka ciyaara difaaca naadiga Reds konton kulan oo ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool garoonka Anfield ayaan looga badinin kooxda kubadda cagta Reds oo ciyaarayo laacibkan u dhashay dalka Netherlands waxaana u tahay runtii taas taariikh weyn oo halkaas ku dhigay waana taariikh u ayli doonto ciyaaryahan Vidak kulanka Arsenal ay wajahay doonto naadiga Watford Arsenal ayaa moodaa runtii inay tahay rajadooda 4 sare ay tahay mid aad u wanaagsan iminka waxa haystaan fursad dahabi 4 kulan oo baaqay haystaan maanta ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta Watford waxay si toos ah u beegsanayaan kaalinta afraad inkastoo la sugaya natiijada ka soo bixi doonto kulanka saacada markay tahay ama fiidnimo 30 daqiiqo United ay wajahay doonto naadiga City haasaate Arsenal haday ka badiso naadiga Watford kaalintii afraad iyagoo lahaan doono 48 dhibcood kooxda kubadda cagta Gunners waxa ku qasbantay inay garaacdo ama ay ka badiso
naadiga Watford inkastoo inay kula ku dambeey kooxda kubadda cagta Watford inay baraaje eber la dhaafi weysay naadiga Manchester United kulanka caawa fiidka markay tahay saacada geeska Afrika 7 qadar 30 daqiiqo Manchester City waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Manchester United wana laba kooxood oo ka dhisan hal magaalo wana laba kooxood oo runtii inta badan mucaarad ku ah waxaan loo yaqaanaa the Manchester Derby kulankan ayaad moodaa runtii in ciyaartoyda soo gaartay hotelka Lowry aan lagu arkin ciyaaryahan Cristiano Ronaldo taasa inta badan ay wargeysyada caalamka ay qoreen in kulanka caawa saacada markay tahay 8 qadar 30 daqiiqo uu seegi doono ciyaaryahan CR7 hasaate tababaraha kooxdaasi Ralf Rangnick ayaa ilaa imika ka hadlin xaaladda ciyaaryahan Ronaldo iyo kulanka United ay wajahay doonto City inuu wajahay doonto ciyaartan ayaa ka dhici doonto garoonka weyn ee leedahay naadiga Manchester City Etihad Stadium koox kasta waxay doonaysaa inay badiso tusaale ahaan shanta kulan ugu dambeeyay labadan kooxood ciyaareen laba ka mid ah United ayaa badisay laba ka mid ah City ayaa badisay halna baraajo ay galeen marka waxa la dhigi karaa shanta ugu dambeeyay kooxdu waa 50-50 waxaase la kala bixi doonaan fiidka caawa saacada markay tahay 7 qadar 30 daqiiqo runtii kooxda kubadda cagta Man City waxay doonaysaa inay ka sii fogaato naadiga Manchester City ayna difaacato koobka iminka haysato horyaalka Premier League sidoo kale naadiga Manchester United waxay doonaysaa inay ku dhameysato afarta sare haddii se laga badiyo rajada United afarta sare ayaa mid mugdi galaysa sidoo kale naadiga Man City haddii laga badiyo difaaca horyaalka Premier League iminka haysato maahan mid la sadaalin karo iminka kooxda kubadda cagta Liverpool waxay leedahay 63 dhibcood soo kale waxay haystaan kulan baaqi haddii laga badiyo naadiga Man City ay soo kale badiso kooxda kubadda cagta The Reds waxay noqonayaan isku dhibco waxaana inta badan dhanka goolasha faa'iidada badan naadiga Liverpool oo leh 51 gool halka kooxda kubadda cagta City ay leedahay 47 dhibcood soo kale waxaa jira kulan kale oo labada kooxood sarki doonaan ee ka tirsan Premier League rajada City ayaa la dhihi kara mid la sadaalin karo maahan haddii caawase laga badiyo cagayo dalka Isbaanishka haddii aan nasiga la liigaha dalkaasi kooxda kubadda cagta Los Blancos ama Real Madrid ayaa waxay afar hal dileen naadiga Real Sociedad gool ay ka dhileen ciyaaryahan Camavinga Modric Benzema iyo Asensio ayna iminka ay hogaanka ku sii dheereysteen kooxda kubadda cagta Los Blancos iyagoo iminka leh 63 dhibcood kooxda kubadda cagta Sevilla oo ku jirto kaalinta labaad waxay leedahay 55 dhibcood halka kooxda Betis oo ku jirto kaalinta saddexaad waxay leedahay 46 dhibcood kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa soo kaleetana ku jiro kaalmo aad u wanaagsan kulanka عليتو كودا كوبادا عكتر ريال أيان مدرونتي إنه يهاي كلن رونتي إنت بدن أي صوب بديين عيار إنت بدن أي جالستين تاجرياشيا كودا كوبادا عكتر لوس برانكوس يولو كو عياريا كرون كذا وين بنابيو ستاديوم دنك على كودا كوبادا عكتر بي اس جي أيا لغو بدي هاليبر وحادرتين هذا نايس روتي تانية وحال دي كرا كودا كوبادا عكتر بي اس جي هوريا وشغستين aga kala horeynta miiska horyaalka dalkaasi hadeenayna kooxda kubadda cagta PSG waxa ay leeyihiin 62 dhibcood kooxda Nice oo ku jirto kaalinta labaad waxay leedahay 49 dhibcood iminka kooxda PSG ayaa hogaanka ku haysa ilaa 13 dhibcood marka kooxda PSG waa rag hore u shaqeystay runtii guuldarada cali soo gaartay lama dhihi karo waxay dhibaatooyin u keeni kartaa inay ku guuleysato horyaalka dalkaasi Ligue 1 soo kaleetay kooxda kubadda cagta PSG ayaa la ballansan naadiga Real Madrid kulanka Champions League in kooxda kubadda cagta PSG ay haleeber uga soo badisay kooxdaasi Real waana kulan kale oo derby kulan labaad ayaa jira ay kooxda kubadda cagta Los Blancos ay soo booqan doonaan garoonka leeda naadiga PSG Prince Stadium وانا كلنا لو قفدي إن كودا كوبادا عكتا ريال أي وقبضيسو ناديجا PSG إن كبدن لو جول سيد هدي أي بدونسو إن يكسر نجاتيو هوريال كا Champions League سوكلتي عياريان لينيل ميسي بابي نيمار ayaan mooday inkastoo aad moodeen dhowr ciyaaryahan kulanka xalayto isageen uu kamid ciyaaryahan Archer Hakimi kaas dhawax ku maqna agayo dalka Talyaaniga hadiyaanayno ciyaaray kooxda kubadda cagta Roma ayaa waxay haleebay direen naadiga Atalanta gool u dhalay ciyaaryahan Abraham laaxib ka soo jeedo dalka Ingiriiska waana goolkii 13aad uu ka dhaliyo horyaalka dalkaasi Serie A waana ciyaaryahan ku horeeyo oo u dhashay dalka Ingiriiska sida sameeyay tartanka Serie A ee dalkaasi Talyaaniga hikoran caadin halkaas ku soo dhigtay wili tirada goolasha ayaa la dhigi karaa way sii socon doonaan inkastoo ognahay in dhowr kulan ay ka dhiman yihiin
cagayo dalkaasi ee talyaaniga ee Serie A wargeysyada caalamka ee wararkii u dambeeyay ciyaara aqyaari wanaagtiya